Bismillahirrahmanirrahim waxaana wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka waa 19ka bisha shanaad May 2026 warbixin yaab leh uu soo saaray wargeyska New York Times oo soo xiganaya saraakiil sarsare oo Mareykan ayaa sheegay in ciidamada Iran ay muujiyeen heer la qabsi dagaal oo aan hore looga aqoon militarigooda warbixintu waxa ay tilmaantay inay Iran iyadoo la kaashanaysa Ruushka si weyn u baratay xeeladaha duulaanada Mareykanka iyo hababka uu u shaqeeyo dagaalka cirka ee Mareykanka saraakiisha Mareykanka waxay aaminsan yihiin inay Iran hadda ka wanaagsan tahay sidii hore ay u adeegsan jirtay nidaamyada difaaca cirka si ay ula tacaasho diyaaradaha Mareykanka saraakiisha waxa ay sidoo kale sheegeen in weerarada cirka ee Mareykanka ay noqdeen kuwo si fudud loo saadaalin karo taas oo keentay walaac qaar ka mid ah in howlgallada cirka ee Mareykanka ay lumiyaan waxtarkoodii military warbixintu waxa intaas ku dartay inay Iran si weyn u daciifisay awoodda dhaqdhaqaaqa ciidanka Mareykanka ee bariga dhexe kadib markii ay beegsatay oo ay waxyeelo gaarsiisay raadarada iyo nidaamyada difaaca ee Mareykanka ee ku yaala salagyada gobolka sida aan wararkeennii hore idinkugu sheegnay Trump ayaa lagu waramayaa inuu qorsheynayo howlgal military oo ka dhan ah Cuba si isbedel dawladeed loogu sameeyo dalkaas kadib bilowgii cadaadis dhaqaale uu Mareykanka u saaray Cuba sida uu wariyay wargeyska Politico madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa maanta ka hadlay shidaalka lagu wado in dalka Soomaaliya laga qodo ama ay ka bilaabato qodistiisa madaxweynaha oo la hadlayay baarlamaanka Turkiga maanta ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay qorshaha shidaal qodista ee Turkiga ay ka wadaan dalka Soomaaliya madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa tusaale u soo qaatay wiil yar oo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed sida uu ugu falceliyay markii uu dhawaan arkay markabka Turkiga ee shidaal qodista oo taagan xeebaha dalka Soomaaliya waxaan doonayaa inaan idinla wadaago dareen walaalnimo oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo meel dhow ka arkay markabka Gari Bay waxa uu si toos ah u yiri wali kama aan soo kaman saameynta markabka Gari Bay inaan si dhow u arko waxayna ii ahayd waayo aragnimo aan la ashqaraaray sababtoo ah Gari Bay waxa uu egyahay magaalo weyn oo socota oo aad weyn oo cusub si qurux badan ayaa loo dhisay ayuu yiri maasha Allah runtii waa farshaxan la yaab leh ayuu si raaciyay Mr Erdogan madaxweyne Erdogan ayaa erayadaas ku tilmaamay sawirro qurux badan oo muujinaya awoodda Turkiga muujinaya sidoo kale fursad dahabi oo safarkaaga iyo mustaqbalkaada bedeli karta muddo kooban gudaheed waxaan si degdeg ah kugu diyaarinaynaa dhammaan noocyada fiisooyinka aad u baahan tahay waxaan kuu qabanaynaa fiisaha booqashada fiisaha shaqada fiisaha waxbarashada dalalka aan kuu fududeynayna waxaa ka mid ah Talyaaniga Spain Canada Faransiiska Ireland Albania Romania Ruushka Netherlands Jarmalka iyo kuwa kale badan maxaa naga dhigo kuwa aad ku kalsoonaan karto adeeg degdeg ah la talin iyo xirfad kalsooni iyo hufnaan qiimo macquul ah ha seegin fursadan mustaqbalkaaga oo maanta bilow waxa ka caawinaysa Safe Travel and Cargo Agency ee nagala soo xiriir telefoon nambarka shaashada kaaga muuqda